بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن دعوة ديال كسر دوادا برنامج كيني حقي حقي SDV يجكي كيبا ما أنت واحد قاعد لدونا قبر سوماليات أو طبعا جورستي واللياب أنا يكون نقطة الغياب لكن waxaan sheegi doonaa waa war ma aha dacaayad iyo maaragtay waxaanu dhinac khaldan ka istaagnay maaha sida aad la socotaan ba xildhibaanada Soomaaliyeed ee wadankaasi Mareykanka aqalkiisa Congress-ka kamidka waa Ilhaan Cumar waxa ay wada joogeen ciyaalna dabcan ay soo dhaleen nin lagu magacaabo Axmed Xirsi oo isagu dabcan nin Soomaaliyeed aha muddo ay isqabeen kadib oo ciyaal ay isu lahaayeen waxa la sheegay inay kala tageen Axmed Xirsi iyada oo maaragtay markii ay kala tagayeen hadalhayn badan iyo tuhun badan adduunka iyo Soomaalida dhexdeeda oo maaragtay laga hadalhayay Axmed Xirsi dabcan wax yar kadib isagu waa iska guursaday oo iska bulannimadii kumuna si raagin oo ka baxay iyadoo waliba markaasi ay Soomaalidu waxba loo taabtaa markii wax loo taabtana inta badan challenge wax la yiraahdo sameeyaan markii gabadhan iyo ay kala tageen saygeedii hore Axmed Xirsi waxa jiray dad sidan oo kala waraaqo ugu soo qoranaya maaragtay Ilhaan Cumar baan rabaa inay guursato iyo kule maaragtay tu gabadha macnaha fursad bay rabeen ka faa'iideystaan iyo tu gabadha iyadana soo qabanaysa Axmed baan rabaa inay guursato ilaa heerkii kolkii dambe ay sii durugto ay sii gaadhay maaragtay dadkii waalidka in la yiraahdo hebel abihi baan rabaa يهبلي أبهد مرة وماركتي challenge جالس أشتري وطبعا أي سمارة هذا ليس واحد جري صحافة العالم كل جالسي هذا الهين وبدن أي هذا الهين إن سببت كان تكل التاجتان كلما نهن أي هيد ننكله أو أنا سنين دين الإسلام لكن كشجع حفيز كإلهان عمر أو أي إلهان يسجح حدود أحمري طبعا وسيدا أي وربعين ترى قلباتكو هذا الهيان إسلام مركز سنة أي وقريين هاتن سيدا لو ضابعي وربعين تبي بي سي دا يوليبا وربعين نكله أو عالم كا وحاسو شعب هذا أما إلهان لفت هذا أي كوسو ضابعي بوجا أي كل هذا هاي انستغرام كا يو تويتر كا إن أي إسكورسدين إسلام نينكي سجاها واجه سل هذا الهيي وايه بريل كعسايا إلى شو أرمها سي بالسود دقيقة أما سوين دقيقة الكعسو بالسود هو جور كاسي سدون نقول قرارات إن ماركتي دين الإسلام كايسين جور دين الإسلام كايسة تاني يسكورس ده مالدو واحد قلت الشيخ وان هاي تعرفت هذا وسؤال هؤلاء يقولنا عليه الله كمان سنة هاوش جور كأمريكا هذا برجور كأمريكا يماركتي سيدا سومارد إلا حد وقف العليسي سدو مروا ما صنتهاي أرتا مركي لك الدين تهورت عشان نقطة علماء ويدين سان صديق العلماء أنا كانوا ولي أنا هاي مركب أدوه هاش ناس قليل مركب حنفرنا إلهان عمر أحمد حليل يسقول سيد مركب كانت تجاد حليل يسقول لابتين جور كودي يوحى كاني نين كانوا لقوتهم يصاب صاصع بحسي وحيد وقدرنا يهدى halka waxa ku joogo ugu horeyn horta Axmed Xirsi wiilka Soomaalida aha ilaahay waxay iskuursan 2000 bay iskuursan sanadkii 2000 waxay kala tageen sanadkii 2008 macna 8 sano markay wada joogeen bay kala tageen sida la sheegay hadana 2018 bay isku laabteen marka iyadu maadaama qof hadda mas'uul ay tahay tusalahan نور مركب حاجة قبل فربنا صوماليها أو مرر بدن جورسدي رك عدانها يكون مذوه قالها كين نحتاج كذا نوريه هو حنستا قبل صوماليها وقرح بدن جورسدي ويتشر مركا حاجة وجوبا ما وح صماح لكن يدو حكي قد وانت هي يدو واحد هذا ورو نقول كرا صحافة ما كلا فيري ويدو وقف مسؤول حل بانات حوي مريكان كا لكن أنت كلا عادي ور من نقطة. أنت كلا عادي ويسي عادي لكن إيده ما دام قف مسؤول أي تاكلت ور بين نقطة ساوش هذا. وأنا سبت واحد لنا مرك. إن أنت تكوفت منه وحيابها قاركوت. إحنا مركا سنة كده لصورنا في بشي أكتوبر. بيه الحلقي أي إلهان شاكتي إن جوركا إيده إيمارتي أحمد
uu maartay xiriirkoodii u dhow yahay inuu burburo meel halisa oo marayo oo xitaa waxba laga qaban karin taa marka waxay keentay in maxkamadda Minnesota ay geysay dacwadaha in ninkan laga furo markii hawshaas ay timaaday waxaa yimaaday tuhun ah in ninkan cadaanka ee Tim Maynard la dhaho ay xiriir la leedahay maxaa keenay ninkan wuxuu iyada u ahaa la taliyaha Ilhaan ee wuxuu ahaa arrimaha siyaasadda waana ay isugu dhow yihiin markaad fiiriso qofka la taliyahaaga arrimaha siyaasadda markaad fiiriso oo qof aad isugu dhowdihiin xog badan ka haya weey oo qof adiga laga wareysan karo xogtaada iyo maartay saad wax u wado maadaama aad tahay hadana qof mas'uul oo ahayn qof caadi oo shacab Ilhaan markii Axmed ay iska furisay ama ay iska furtay tuhun farbadan baa soo baxay tuhunka wuxuu ka yimaaday markii islaanta ninkan hadda lagu tuhmayay la taliyaheeda arrimaha siyaasadda ahaa Tim Maynard islaanta uu qabay oo 55 sano jir ahayd ay masayrtay oo ay dalbatay furiin gaar ahaan markii ay tuhuntay in xiriir jacayl uu ka dhaxeeyo Ilhaan iyo Tim Maynard sahan hadda warbaahinta Fox News oo kamid ah warbaahinada ugu afka dheer Mareykanka ba arintan ka faaloto warbixin ka qortay oo sheegtay in Ilhaan حوي أي لا أقل كشنين كان تيم ماينر إذا حتى سوق قرتي وبركة الحمد لله ونكفر حسنا هاي ما دام أن أد السود والمركي هراء هذا إنه حوي أن إسقرسن dadka Soomaaliyeed marka fiirso kuwa badan baa marka soo dhigayay xitaa waxay soo dhigtay iyada markii quraanka soo dhigaysay Instagram-ka ay soo dhigtay isaga iyo iyada sawirkooda oo isku dhagan oo ay leedahay alxamdulillah waa barako wax badan baan wadaagaynay haddana waa bal iskursin طبعا وان قال هذا iyada waxa ma banaaneen nin gaal inuu guursado diin ahaan kulliba wixii ay u guursatay iyada diinta soo guursanaa ma jacayl ba mise ma qanacaysan lagu meeri illa muslimiinta dadka muslimiinta masaajida iyo muxuu ahaa diinta islaamka lagu meeriyaa iyo maxaafada ahaatee laakiin iyada hadda way la aqal gashay la sheeg iyadina sheegtay inuu ninkeeda noqdo ay isguursadeen laakiin meesha isku guursan ilaa ya hadda warbaahintuna ma qorin iyaduna ma soo qorin isagana wax laga hayo hadda oo warbaahinta ay soo qortay oo arinta uga faalooday ma jirto hala kaliya iyada faaladeeda weeye meesha hadda guurka lagu arkay laakiin qaabka isu mehersadeen kulliba waxa weeye shaqo kulanay wax hadda aan macluumaad aan ka hayno ama iyada ama isaga ama warbaahinta ma jirto marka dad Soomaaliyeed marka ka falcelinay hawshan marka waxa moodaa kuwa badan inay xitaa leeyihiin dumaasha soo dhow Tim ay qaray gabadhi ridinayaan ha kuwa waxay leeyihiin iyadoo wiil Soomaaliyeed oo waxa weeye wiil Soomaaliyeed iyadoo uu qabo iyo wax ka dooratay nin gaal ah cadaan ah qaarkood leeyihiin kuna way ugu hambalyeynayaan waxay leeyihiin Ilhaan waan ugu hambalyeynaa dumaashigan Tim waan soo dhaweynaa leeyihiin marka waxa moodaa falcelinta laga bixinayo inay maartay ay kala duwan tahay laakiin mar walba qaybta dadka ka soo horjeeda hawshan yaa badan hawshan diidan kuwa qaarkood waxa laga yaabaa inay arkaan ba inay tahay hormar iyo guul gaaray Ilhaan dabcan gabar qaxooti ahayd oo Mareykanka ku tagtay waligeed laakiin meesha ugu sareysay joogtaa laakiin waxay noqotay markii hore gudoomiye xaafeed bay noqotay lagu dartay kadib haddana doorashadii u dambeysay bay tatay oo xildhibaan golaha sanadka bay noqotay golaha shacabka ma golaha sanadka bay noqotay marka aqalka sare saameyn bay yeelatay oo marar badan Trump waxay ku weerartay Twitterka Trumpna waxa weeye uu ka taxqiiqato waa u soo jawaabay heer xitaa gaaray inuu dhaho waxa weeye hala xilka laga qaado iyada iyo gabdho kale iyadana gabdho kale dhowr ha jira oo sanadka ku jiro iyadoo ay ka mid tahay ka yimaada dalalka dagaalada ay la degan sida Pakistan oo kale marka wuxuu yiri dalalkooda waa qashin qubuul marka Mareykanka oo awoodda koobaad ee caalamka dadkiisuna yihiin dad ilbaxa bay doonayaan inay u tilmaamaan qaabka wax loo hogaamiyo marka Trump wuxuu u arkay gabar qaxooti oo qaxootina Mareykanka ku timaaday oo dal dagaalo sokay ay la degan ka timid in isaga ay wuxuu yeerso qaabka wuxuu hogaamin lahaa ay u sheegto buu arkay inay tahay arrin khalad oo aad u falxun Mareykanka wuxuu isku tiriyaa quwad ahaan military ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo maartay sumcad ahaanba inuu asaga yahay dalka dunida ugu waxa weeye saameynta badan
marka in gabadh qaxooti ahaa oo weliba Soomaaliya oo dal burbura ka timaaday oo qaxooti ahaan dal ku soo gashay inay wuxuu tilmaanto oo Trump hadda u sheegtay qaabku wuxuu hogaamin lahaa buu wuxuu arkaa wax maartay lama wax aan maartay uusan qaadan karin marka wuxuu leeyahay ba dalalkoodii baa gudaafada oo qashanka lagu qubay oo xaalad maartay marxalad aad u adag marayay sababay Mareykanka oo ah dalka ugu awood badan caalamka dadkiisuna iyo dadka maartay ugu fiican ay wax ugu yeedhin karaan ay ugu sheegi karaan qaabka wax loo hogaamiyo marka qaadan waa ku dhacay mar badan marka waxay aad u soo shaabaxday markii iyadii Trump ay isku dhageen Twitterka ay isugu jawaabeen waa gabadhii ugu horeysay Soomaaliyeed xijaaban baa la dhahaa konga laakiin aanu de xijaab ma arag ba in yar oo khamaar madaxa ku xirata mooy xijaabka marka dadka xijaabka say u yaqaanaan baa maarta waxa ma hayaa kala aho madaxa daboolan way xijaab de xijaabku saas maahan markii islaamka la fiiriyo marka iyaga madaxa daboolan gariyo u yaqaanaan macna madaxa yar gambal lagu xidho bagaalada xijaab u yaqaanaan xitaa warbaahinta Soomaalida qaarkood qorayba gabadhii ugu horeysay xijaaban xijaabka caadiga la xirinay weligeed ma laakiin madaxa marka qaarkood in khamaar ama ku xidhatay ama timoon kaliya ku xidhatay inta kale marka qaarkood idin su'aal qabta arkayso marka laakiin dad badan waa gabadh asturan marar badan baa waxa weeye dadku ay taageereen laakiin mar hadda waxa jirta ay ka hadashay sharcigan dadka isku jinsiga isu galmooda oo hawshaas ay ka hadashay oo ay taageertay oo aad looga soo horjeestay oo arkayo culimada xitaa Somaliland joogo aad maartay u radiyay iyadoo uga soo horjeestay oo kuwii marka hore taageerada xitaa u muujiyay oo u arkay inay tahay gabadh Soomaaliyeed oo halkaas gaartay inay tahay guul Soomaali u soo hoyatay diinta islaamka oo gabadh waliba qaxooti ah laakiin Trump waxyaabo qaar ay isu geefeen waxa kamid ah iyadana markii ay Israa'iil ay weerartay marka Trumpna Israa'iil dhanka laga maro oo ninka Quds u aqoonsan inay tahay caasimadda Israa'iil marka marar badan marka waxay siyaasadahan ku kala fogaadeen oo ay Twitterka isugu jawaabayeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo heer gaadhay uu dhaho xilka baa laga qaado gabadhan marka hadalhayn badan bay dhalisay warbaahinta caalamka ka hadlaysa marka guurka hadda ninkan ay la aqal gashay ee cadaanka marka dabcan kulliba Soomaalida qaar waxa laga yaabaa inay si kale oo arkaan aad oo maasan dalka casaw hadduu khayr u yahay Ilaahay oo barakeeyo waxaan leenahay Ilaahay ka dhigo ilaahay tiiso islaamsan ninkaasi ay guursatay team manat malada team manat Allah haday soo islaaminaysa in ka hor ay soo islaamisay tiiso islaamisay diinta islaamka ku soo dartay marka ay diinta islaamka ku meersato la dhaho ninkii team hayo Faarax ama Cabdi loo bixiyay illa yaan naftada amaan iyo waxay u ahaan lahayd arrin fiican haday soo islaamisana diinaha marka la firiiday ajir bay soo islaamin kartaa ajir bay minkan laakiin dad qaabka hadda sharci ahaan maadaama isaguna gaal iyo gabadh muslimada ay tahay qaabka isu guursadeen baa de qaab shaki ku jira hadda laakiin soo islaaminta kadib iyada waa meeshada laakiin qaabka isku guursadeen baa waxa weeye ilaan shariicadu badan waxa la yiraahdaa ninka waa artay nin iyo gabadh kale diin hadday isku guursadaan ninka diintiisa inta badan la isugu tagaada la yiraahdaa waayo hadduu nin islaam hadda gabadh kristaan soo guursado gabadhaas waxay ku inta badan u badan tahay inay diinta islaamka qaadato haddii gabadh muslimada ay nin kristaan guursadaan inay gabadhaas kristaanka qaadatay hadda salaam ku sheegay marka nuur waxaad xasuusay hadduu ninkaas hadda Soomaaliya joogi lahaa waxa dadku ay qabilaan rajaa ah inay soo islaamis maadaama dadkiisu muslimiin yihiin 100% uu joogo awood ahaana iyada marka kaga awood badan Soomaaliya gudaheeda laakiin hadda marka xagga la joogo mas'uulka dan iyada ahaatee ninka isaga ka awood badan dalkiisii way joogtaa iyada ay qaxooti ku ahayd marka isaga ka awood badan hatta hadda ilmo dhasho kaleete ilmaha ninkan isaga saameyn badan ku yeelanaya marka wuxuu heli karaa ilmaha isaga diintiisa awood yeelanaya ilmaha diintiisa inay raacaan waxa weeye maxkamadihii baa jira maxkamadahan always waxa laga yaabaa marka qaarkood inta badan inay isaga u xaqliyaan ilmaha waxa laga yaabaa inuu dhaho ilmahan diinteeda qaadanayaan iyada marka meel cid oo ziira ay soo istaagto waa hagaag kulli Ilaahay baa sida khayr ku jire ma faragashanayna anagu hadda hawlahaas iyada dabcan ay u taala laakiin waxaanu sameeynaa warkaasi kooban la xiriira guurkaasi gabadha Soomaaliyeed ee Ilhaan Cumar
ay isguursadeen ninkaasi cadaanka ee lagu magacaabo Timinay dabcan warbixintan inta ugu badan waxaan kasoo xiganay oo lagu baahiyay warbaahinta caalamka sida Fox News iyo waliba BBC oo iyadana warbixin dheer ka qortay inta barnaamijkan xigeys ku soo laaban doono waa Nuur iyo Barreelka Casoo idinku dhaafaya sidaas iyo guul iyo gobonimo wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh